dagaal ayaa laga cabsi qabaa inay gacmaha iskula tagaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa aqalka sare kadib hanjabaado ay direen xildhibaanada qaarkood waxa cabsi xoogan ay ka taagan tahay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gaar ahaan halka uu ka dhacayo fadhiga labada gole ee baarlamaanka iyadoo maanta loo madalsan yahay in uu dhaco kulankan ayaa waxa soo baxaya warar kala duwan iyo xogo ku aadan sida uu ku qabsoomi karo kulankan waxa jira horkeenis dib u eegis lagu sameeyo wax ka bedel lagu sameeyo ilaa iyo dhowr cutub oo kamid ah cutubka dastuurka ama cutubada dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya cutubka shanaad laga soo bilaabo ilaa iyo cutubka sagaalaad ayaa la tilmaamay inay kala yihiin hataba cutubka shanaad waxa la tilmaamay in looga hadlayo nidaamka federaalka iyo baahsanaanta awoodda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya cutubka lixaad waxa looga doodi doonaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya cutubka toddobaad madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya cutubka sideedaadna xukuumadda oo qodobo kamid ah ee cutubka afraad sidoo kale cutubka sagaalaad waxa looga doodi doonaa garsoorka dalka dhammaan kulamadan waxa ay dhacayaan ilaa iyo laga gaarayo 3 Maarso 2026 waxa dib u dhac uu ku yimid xilliga xiritaanka kalfadhigan toddobaad ee golaha shacabka iyo guud ahaanba labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa golaha shacabka iyo aqalka sare haddaba waxaan idin daawansii doonaa xildhibaanadii dhaartay ee tilmaamay in wixii qalalaasa ah ee ka dhaca golaha shacabka ay mas'uuliyadeeda qaadayaan guddoonka labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa si toos ah u sheegay arrintan in mas'uuliyadeeda uu qaadayo Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo uu ku tilmaamay in uu yahay nin doonaya in dalkan xaalado siyaasadeed oo cusub oo waliba guracan uu geliyo waxa sidoo kale isagana kamid ah dadka hadlaya xildhibaan Maxamed Barre oo kamid ahaa golihii wasiirada ee Ra'iisul Wasaare Xamse xilligana kamid ka ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu si cad u sheegay in qodobadii ay ka wada hadleen ay toos u taabanayaan masiirka dalka xildhibaan Qalato ayaa kamid ah dadka isagana tilmaamay in wixii dagaal ah ee ka dhaca golaha shacabka ee dhibaato ah ay mas'uuliyadeeda qaadayaan guddoonka golaha shacabka ugu horeeyo gudoomiye Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo Villa Soomaaliya si toos ah ugu xiran sida la sheegay haddaba aynu wada daawano qaar kamid ah xildhibaanada oo shirkan jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka baarlamaanka Soomaaliyeedna ka shaqeeyo arrimaha adiga muxuu ahay danahaada iyo xilka aad ku dheereysanayso waxa soo dhan waxaan ku laqaynaa Berrito Aadan Maxamed Nuur gudoomiyaha baarlamaanka isku dili kuwa aad shilmaadka yaryarka gacanta laga siiya ee aad muxuu ahay hordhiga ka soo dhiganaysana yaanan baarlamaanka magaciisa yaan la dili Berrito waad ogtihiin xildhibaanada Soomaaliyeed guud ahaan 329 way ogyihiin in afartii cutub oo horo ay taagan tahay oo laga noqdo oo Xasan Sheekh ruuxiisa asqaar ka noqday tii madaxweynaha waxa dooranay shacabka ma ka noqonino isagoo waliba lala gorgortamay maanta ma haddana 5 cutub oo kale ayaan haddana aan dhahnaa waqtiga aan ku dilnaa ummadda Soomaaliyeed ee dooratay xaq miya inaan waqtigii aan loogu talagalay inaan ugu shaqeyno inaan ka dilno oo maalinba aan sidii wax wareeri u qaba amal aan dabadeena ku wareegno meeshii shalay aan ka soo kacnay inaan maanta u noqon sax maaha madaxweynuhu ujeedada uu kaleeyahay waa in uu ku gorgortamo oo baafarsoon ka dhigtay wada bilood oo ugu horeysa bas la keeni karo iska dhaaf labadii bilood afartii bilood ayaa biri noogu egtay marka dastuurkan ka soo qaaday madaxweyne Xasan Sheekh muxuu ahay gudiyadiisa ay kala jaban yihiin ee goboladii dalka kuwii xataa idinku xisbiga ahaa gudigooda ay qaylinayeen ee Jubbaland iyo Puntland ay ka maqan tahay Somaliland ay maanta waagoon ay leedahay dalkii maan si kala goynaa xildhibaano aqligeena iyo maskaxdeena waa inay shaqeysaa waa inaan u dhaqanaa dalkan anagu aan u dhaaranay oo aan muxuu ahay aan go'aansanay inaan kala badbaadino kii maqana aan isku soo celino waxaad arkaysiin dawlad goboleed muxuu ahay Somaliland dadka waagoon markay dhaheen dad caynay war caytin ma lagu soo noqdaa ilaahay idin ku dhaari
qofaa caynay waxaasoo dhan waxay dowlad xumada ay tilmaamay waxa dadka kala geeyay tilmaamay inta hartiyaan la kala dirin berrito baarlamaanka wixii ka dhaco aadan maxamed nuur aadan madoobe oo hal bisha 14 bisha abriil ay u agtahay waqtigiisa 14 abriil ay u agtahay aadan maxamed nuurow haddii doonayso inaad ummadda Soomaaliyeed sumcad aad ku sii yeelitid maanta adduunyada waadna maqlay adduunyada maanta buqcad ay noqotay waayna maqlay caalamka oo dhan ha ogaado biri baarlamaanka ayna wixii ka dhaco aadan maxamed nuura sabab u noqonaya asaga ayaana dambiil u noqonaya inuu Soomaali kala qaybiyay inuu dastuurkii aan ognahay 4 cutub oo beenta ahaa hadda ka horna la ansixinayay si jujuuba lagu ansixiyay maanta oo la rabay Soomaali in la isku keeno oo gobol la dhigay 1 February guddoonka aan ognahay waxa uu ka shaqeeyo iyo madaxweynaha Soomaaliya oo waqtigiisu hadda uu gabaabsiga yahay waa ayaan darro ummadda Soomaaliyeed iyadoo abaar ku jirta oo colaad ku jirta in la sii kala qaybiyo waanu ognahay in shalay xaaladihii jiray oo gudoomiye ku-xigeenkii iyo guddigii dastuurka ay dhaheen qayb ka baniin maantana ay hadleen xubnihii ka socday maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug iyo xubintii Somaliland iyo Southwest waxa kale ayaan daraa baraha bulshada ku arkayseen inay soo qorayeen wax laga xumaado ah inay dhahaan maamuladii kala Jubbaland iyo Puntland si online bay uga qayb qaateen meeshaas waxay ku tusinaysaa inuu madaxweynaha iyo guddoonku ay rabaan Soomaaliya inay sii kala diraan oo baarlamaankana ay sii kala diraan waxaanu leenahay sidoo sharcigu qabo sideedaba baasaboorka waxa uu yahay 6 bilood u harto laguma dhoof baarlamaan ay maalin u hartay anaga bari baan u hartay oo kalfadhigay sideed bari uu ku eegyahay waxa weeye bari inuu baarlamaankaas wixii ka dhaca mas'uuliyadeeda waxa qaadanaya guddoonka Soomaalidu waxay tiraahdaan markuu geero ciin daaqo waa loo yaabaa guddoonka waxa leenahay wax badan baa ku soo caamaasheen iyadoo la qeylinayo oo la buuqayo inaad dubaha ku dhufataan maanta tii hore maanta waxa noqonaysaa haddii bari talaabada lagu dhaqaaqo in baarlamaanku kala jabo oo guddoon la doorto oo halka dawladnimadii Soomaaliya jamhuuriyadda saddexaad ay ku burburto aadan madoobena dhaqan buu leeyahay hadda ka hor markuu guddoonka ahaa uu kala diray maanta tiibu nagu wadaa laakiin gacantaanu ka qabanayna Brito ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad bari wixii halka ka dhaca guddoonka mas'uul ka ah oo qaadanaya sababtoo ah isaga ayaa wuxuu soo diray ajando sharci darro ah iyo waxaan laga shaqeynin iyo dastuur ay runtii aan ognahay Soomaali shalay inay ku kala tagtay sanad ka hor wixii ka dhacay aan ognahay marka waxaan ku soo gabagabeynayaa oo nuxurka shirka kana uu ahaa inaan ummadda Soomaaliyeed aan raahno alamtaray soo dhaaftay berrito halka wixii ka dhaca xildhibaanada isku dagaali doona iyo wixii halkaas ka yimaada iyo wixii waxa weeye ummadda Soomaaliyeed baarlamaankooda lagu kala kaxay mas'uuliyadooda waxa qaadan doona guddoonka hadda xilku ka sii dhamaanayo oo bisha u hartay sansaan aan wanaagsaneyn iyo khilaaf siyaasadeed oo cusub ayaa soo kala dhaxgalay labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xildhibaanada ka kala tirsan deegaanada qaar ee maamul goboleedyada ay ka soo kala jeedaan waa Jubbaland iyo Puntland qaybtooda maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo Galmudug ayay ka soo kala jeedaan oo si toos ah u garab istaagay mucaaradka dalka mucaaradku xilligan waxay helayaan garab baahsan oo ka imaanaya labada gole iyaga oo hubanta la'aan siyaasadeed oo arrimaha doorashooyinka ah ay ka dhex jirto wali dawladda dhexe ee Soomaaliya hubanta la'aanta doorasho waxa kamid ah in habkii doorashada iyo qaabkii ay u dhici lahayd ilaa iyo hadda aanan la sharaxin meelna lagu ogeyn ummadii Soomaaliyeedna ay ka dhowr sugayaan madaxda dalka xilligan hoggaanka u haysa wixii ku soo kordha barnaamijyadan wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii la dhamaadka aad la soo gaartana noogu soo biir saaxiibada la sii wadaag qaybta hoose ee faaladan aragtida nagu la wadaaga